ولا المجاعي واحنا على حرس دعالة عبد القادر ولا الوحن كيمي مجال لندن ساعد مركي هاي سديد يروح ما كسودون لندن هذه النمو شليته السبب عن ترانسيت كوهين كودي يفرشي أيام سوفر يسمى كرون كديارة ده إيجال إنترناشنال ولا الواحد دعي مرة الله لي مكان صاو سوفر يسمى وحن ولا وانا لك حي ميل إن مصر بدن وغلافيس iyo koofiyada sito xirxiran baa meel lagu sugayay dhinaca kalena ciidan military iyo booliis oo fara badan ayaa iyaguna dhinaca kale lagu sugayay walaal waana la qaaday markii dambe waxaana la geeyay neer airport xagga ka xigta oo hangar weyn oo adigu meel la rinjiyo loogu tala ilaa 3-4 sariiroodna ay taalo adoo soo koobaya tiradiinu intee ahayd walaalo 60 aan ahayn ugu dambeyntii xagga la idin geeyay walaalo halkii aan ku sheegay airport hangarkii waxaan ku jirnay muddo ku dhawaad 6 saacadood baan ku jirnay halkii baana loogu yimi waxa la yiri waxa la idin diyaarinayaa meelo adegtaan hoteelada la idin diyaarinayaa waa ka soo baxa halkii baan walaal isku qabsanay markii aan isku qabsanay waxa dhacday waxaan nidhi hoteelkan yaa bixinaya iyo mas'uuliyadda iyada qaadaya waxay dhahdeen wayno cagwareejiyeen way diideen inay noo sheegaan inay bixiyaan halkii baan 2 saacadood oo kale aan sii joognay 8 habeenimo markay gaadhay oo koob shaaha iyo in yaro cunto aan loo keenin ayaa walaalo basaskan 24 qaadana loo keenay niman booliisna waana loo keenay waxa la yiri wasiirkii dakhiliga maxamed kaahin wasiirkii caafimaadka intuba hoteelka la yiraahdo royal ee ku yaala galbeedka magaalada hargeysa ay wasiiradoodu ku sugayaan halkii baan nimi markaan saa u soo degnay intii la wadayba way naga baxsadeen wasiirana uguma niman cid kalena uguma niman halkii baan haddana isku qabsanay booliis baan isku qabsanay ninkii meesha lahaana wuxuu yiri haddaan qof waliba $50 bixin sariirtii ma soo gelayo waata walaalow halkii baan haddana muran gelinay oo dee aan murannay war ma haysano lacag go-aankana 1 o'clock markii aan saa u soo degnay half an hour ka hor buu soo airboodadii hore aad ku soo degteen baaritaan ma la idinku sameeyay waxna lagu sameeyay haba yaraatee aad sababo unba baalkan yar screen-ka akhriya temperature-kana lagu sameeyay taasna intayada waan soo wada dhaafnay ka hargeysa markaad timaadeen maxaa baaritaan la idinku sameeyay walaal waxaana lagu sameeyay screen-kaas un baana laga qaaday oo waana temperature-ka un baana la tijaabiyey in aad karantiil ahaataan oo dadka inta badan la badbaadiyo maxaad ku diidantihiin idinku walaalo wax allaaliya waxaan ku diidanahay ma jirto laakiin hadda arrinta waxa idinku adag waa maxay waxa nagu adag walaalo ma caaw hoteeladana la keenay habeenkii waa $50 waata qaar laba sariirood baa yaala waxa la yidhi waa 100 waata marka haddiina la doonayo in la karantiimeeyo meelna la geeyo hoteelo waxa jira $10 qaar baa jira waxa jira gas house iyo dee qofkiiba $15 iska bixin karo annagu ma diidanin oo diyaar baan u nahay ma doonayno carruurtayda joogta 8 carruur ay jooga burco ma doonayo inaan xanuun u geeyo aabahay baa jooga carruurtayda joogta inaan u geeyo ma doonayo laakiin waxaan doonayaa system iyo nidaam nin qof wasiiro maanan arag agaasimo maanan arag cid allaaliyo cidaan aragnay ma jirto niman askara iyo inama yaroo lana lagu yidhi caafimaadka ka shaqeeyaan waa tahay maxaad markaa imika leedihiin xal ha laga dhigo xal waxaana horta caawa waxaana lagu dejiyey waan diidnay inaan hoteelkan degno waxay yidhahdeen annagaa idi kafaalo qaadanay annagaa bixinayno wax walba annagaana u diyaara xaaladdu way iska adag tahay somalilandna awood badan male haddii sidaa degdega aan wax loo qabanin waxay noqonaysaa in dee xaaladdu sii qasantee soo ma aha idinkuna inaad niyadda hagaajisataan oo aad taageertaan dawladda wixii kale qabatee walaalo diyaar baan u nahay laakiin walaalo waa qof maanta awoodi kara $50 iyo $100 habeenkii ku soxda 14 cisho dee oo nagu jira maanta ma jirto nin waliba reer buu soo shaqaysto intuu soo shaqaysto isii ku gaad maxaad soo jeedin lahayd ugu dambeyntii waxaan soo jeedin lahaa muwaadin kastoo halkaa ka soo degaya waxa fiican in lagula dhaqmo nidaam iyo sharci lana tuso
waayo anagu wadamo sharci laan ka nimi waan u hoggaansannahay wax walbana waan ognahay sharciguna siduu u kala sarreeyaan ognahay laakiin waddan aan bilaa sharci oo aan sharci shaqaynayn oo airportkii cid mas-uula aanad garanayn dadkii ilaa qaaradka qaarad la soo caawinayay balshidii dadka ugu liidatay ayna caawinaysay oo buuljeeradii iyo nagu ku riixaysay dadka iyagii jilicsanaa maalintii aan nimi waddankii aan u dhalanayna sidii inaan maxaabiis nahay meena la geeyey waan ogon lahay in la geeyo laakiin waa in dadka wax loo sii diyaariya waa in ambulance loo sii diyaariya dadka nakaxaynayay iyagu nin protect gashanaa ma jirto kuwa baska nagu waday qaar hotelkana la keenay caawa kuwa nagala shaqaynaya kuwa cuntada siinaya cid u diyaar garooday oo gashan glasses ama protect garo de virus uga diyaar garooday ma jirto walaal laakiin waa sidee qof la karantiimeeyey hotelkii ugu qaalisanaa magaalada inta la geeyo takadala aan kaa ilaahay waxa weeye bahashaa yarana lagu taskareeyey maahaane hal foonna lagama buuxin waa tahay oo la leeyahay magacaa xaggaad ka timi xanuunkan ma qabtaa temperaturekiisu ninkaa waa inta waxna laga buuxiyay haba yaraatee ma jirto